asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaad arday muuqaalkan waxaan doonayaa inaan kaga hadlo waxa la yidhahdo search engine optimization iyo sida loo qoro postis search engine-kooda wanaagsan yahay. Tan waxay ka caawinaysaa in dad international ay postiga blogaaga soo booqdaan kadibna ka hesho CPM wanaagsan, lacag fiicanna ku hesho. Marka muhiimadu waxay qofka blog qoraya waa inuu traffic badan helaa. So traffic badan saa u heshid waa in search engine-ka aad ku wanaagsan tahay. boqolkiiba 98 trafficka blogska adduunka helaan waxay ka helaan through search engine. haddii aad tiraaho Facebook iyo meelahaas soo gelinaya waadna ku daalaysaa lacagna kaaga baxaysaa. Marka waa in si organiga lagu soo booqdaa oo aad search engine-ka ka dhex muuqataa. Search engine-ka si aad ugu dhex muuqato waxaa jirta sharciyo badan oo la adeegsado. soo sababtoo Google ayadu ma laha dadku ma u kala qiimeyso siday u kala weyn yihiin, waxay u qiimeysaa nin walba siduu u raacdo sharciyada search engine optimization-ka. marka si aad search engine optimization-ka u hagaajiso waa inaad u baahantaa aqoon badan oo ku saabsan search engine-ka inaad garanayso. marka taasna waxaa weye qof blogger haddii aad tahay waxaa laga yaabaa inaadan teknolojiyada xataa ku fiicneen oo aad waxyaabaha qaar maybe waxaa laga yaabaa qof caafimaadka yaqaanan inaad tahay waa doonaysa inaad wax ka qorto. marka adigu aqoon uma lahid search engine-ka waxaa marka waxaa jira plugins dadka ka caawiya inay helaan search engine optimization ayagoo ku hagi doono kuu sheegi doona meeshii kaa khaldan wixii u baahan tahay inaad saxdo oo aad iska hagaajiso. marka hadda pluginka ugu fiican aniga aan arko waxaa leedahay Yoast Premium, anigii premiumka isticmaalaya. sidoo kale tipskan aan sheegay waxay kaliya ku shaqeyn doonaan WordPress-ka caadiga ah wordpress.org laga soo degsado lacagta lagu bixiyo hostingkiisa. bloggerka caadiga ma lahan waxan. soo ma garanay bloggerka caadiga inuu leeyahay isagana plugins oo kale u shaqeeya, laakiin se anigu waxaan isticmaalaya imika WordPress-ka. so waxaa u baahan tahay markaa halkan SEO premium analysis-ka. premium analysis-ka waa in uu hadhow isagoo dhan green noqdaa. hadda guduud badan baa ku jira. halkan hadda u fiirsatana readability-gana guduud baa ku jira, SEO-na guduud baa ku jira. so si postigaaga uu caan u noqdo waa in labada xab ee green noqdaan hadhow kadib buu postigaaga si fiican u shaqeynaya. haddaba waxaan u baahanaa horta number 1 postigan qorana inuu af English ku qornaado. haddii kale Yoast Premium ama Yoast SEO Premium kuma caawin karayo, isaga af Soomaali ma yaqaano. marka daraasad yar baan sameeyay ku saabsan tasks blog postisyada ugu fiican ee lagu helo CPM-ka badan iyo dadkuna aad u raadiyaan. kuwa ugu caansan ay soo baxay waxaa ka mid ah personal finance waxa la dhaho oo ku saabsan lacagaha dadka doonaya inay finance-ka ka hadlaan oo kale. marka dad badan waxaa jira Google-ka ku qora inay finance-ka problem ka haysto ama sidee personal finance loo helaa. marka anigu waxaan doonayaa inaan ka qoro topic-giga guud wuxuu noqonayaa personal finance. so waxaan sameyn doonaa marka ChatGPT baa imaanaya ayada waxaan ku dhigi doonaa waxaa ii sameysaa posti ka hadlaya personal finance-ka tips ku saabsan. so waxaan dhihi doonaa right markaasaa imika arkaysaan wuu noo dhameeyey qoraalkii. waxaan kaloo u raacin doonaa marka intuu titleka iyo waxaa wada waxaan sameyn doonaa inaan copy-sano kan kadib sidaan usoo wadno waxaan keeni doonaa postigeena qaybtiisa hoose qaybta sarandhe paste markaa marka hadirtaan automatically kan uu isir bedel readability saarkiisa hadirtaan yellow buu noqday jaalo hurud laakiin SEO wali waxba ka qaldanaysa. so labadan waliba kanba muhiimsan oo u baahan in looga shaqeeyo. farsamo kale waxaa jirta ayadana ku saabsan SEO-ga oo ah markaad doonaysid postigaaga inaad search engine-ka ku tababarto waa in uu jiraa la dhaho key phrase ama keyword. so keyword-ka halkan baa lagu qorayaa. keyword-ka aad emphasis-ka ku sameynaysaa doonaysid inaad isaga ka duusho. so keyword-kayga hadda wuxuu noqonayaa personal finance. marka keyword-kaas waa in wax walba ay ka duulaan. so marka tipiska halkan hadda u fiirsato kuwan waa kuwa problemka ah, kuwa warning ah jiraan soo bixi doona hadhow. wuxuu ku dhahay page-kaaga title ma lahan weli. so kuwa fudud baa jiro hadirtaan aan sameyn karno oo title-kii waxa uu ka mid yahay. laakiin title-ka markaa sameynaysid sharci waxaa ku jira ah in title-kaaga uu key phrase-ka ku dhex jiro. so key phrase-kan haddaan isticmaalayno waxaa weye personal finance. waa in marka personal finance laga dhex helaa title-kaan isticmaalno. so title-a hadduu noo sameeyey kan personal finance kuma dhex jiro.
kan hore wuu ku dhex jiraa kana kuma jiro. So kan horta waan qaadan doonaa. ChatGPT gu inuu furnaanaya usoo noqonayna wixii naga qaldan isaga noo hagaajin doona. Waxaan samayn doonaa title inaan u sameyno marka hore. kadib hadda u fiirsato kana huruud buu soo noqday hadda xogaa waa dhownahay. laakiin hal xabo waxaa jira improvement u baahan iyo 6 xabo problem mid baa halkan kusoo biira hadda laakiin weli qaybtii guudka muu gelin. wuxuu leeyahay sidaa u qortay key phrase-ka ugama soo muuqanayo title-ka anaga uga soo muuqanayo title-ka laakiin ma ka soo baxay halka u horeyso. marka waxyaabaha lagu baahan yahay improvement ku sameyso waxa kamid keyword-ka isticmaalayso waa inuu noqdaa waa inuu ugu hormaraa maxaa keyword-ka waa inuu title-ka ugu hormaraa. keyword-ka aan qaadanayna ChatGPT anu waan wareeriyaa wax kasta uu sheegaa. Make the title to have this text at the beginning. Just wax la iska qora. ChatGPT gu ayadu waxay ku fiican tahay wax marka ku celcelisid bay kaaga shaqeynaysaa. Hadda wuxuu sameeyay wuxuu yiri personal finance made easy. 5 tips to improve your financial health. So that is good. Hadda aad buu qurux badan yahay title-kaas. Sababta mar waxay doonaa qofka marka horeysa inuu arko wuxuu raadinayay. So adigu psychological tips way Google-kan algorithm-kiisa waxyaabo isticmaalay ka mid tahay. Marka haddii title-ka aan ku bedelno kan improvement-iga meesha uu ka baxaya. Okay. hadduu ka baxay guudku dhaxgal markaysa weel dhan baa leedahay. marka waxa la doonayaa 6 kale soo hartay xabad inaan uga saarno meesha. qaarkood way fududiin qaarkood waxay u baahan yihiin inaad waxyaabo qaar bedesho. hadda no outbound links ma lihid. So outbound links waxa weeye inaad ku darto postigaaga linkiyo adiga ka baxsan oo external. So tusaale website baa ka soo qaadanaysa personal tips ama book baa ka soo qaadanaysa personal tips. waa inaad buuga reference garaysaa sababtoo taa waxay keenaysaa in adoo linkiga uu ku xidhmo Google-kana asagu waxa weeye one big network way in isku xirmaan. sidoo kale waxay noqonaysaa in postigaaga uu reference yeesho dadka dhow ay ku aaminaan. marka outbound link waan u baahanahay. outbound linkiga isticmaali doono waxaan ka soo reference garaysanaynaa halka asaga laftiisa aan weydiinaynaa give me some reference URLs for that post. So error buu soo saaray. waxaan dhihi doonaa marmarka qaar waxaa iska yiraahdaa regenerate. okay hadda waxaan siinaa links aan isticmaali karno as reference oo aan ku dari karno postigeena. marka dhowr xabo noo soo qoraya kan ugu caansan baan ka qaadan doonaa. hadda Infostapedia way fiican tahay sidoo kale Forbes-na way fiican tahay labadaas waan isticmaali karnaa. so kan baa laakiin creating budget xoogaa ka yar qurux badan kaas. so waxaan samayn doonaa intaan dhan noo wada qaad xagan kaalay waxaan dhihi doonaa reference ama read also kadib inoogu best garay. waxaan kala samayn doonaa create a budget bis baan kasoo reebaynaa kan qoraalka linkiga wuu naga folxumanaya meesha kan waxaa tiraahdaa cut kadibna kan baa linkiga ku xiraya ku best garay new tabna ku fur. okay haddii aadaan soo noqono kii u horey uu ka baxda 5 bay noqdeen. so one by one baa u dilaysaa ilaa aad waxoo dhan ka dhigtay green. okay waxyaabo kale oo fudud baa jiro. hadda meta description wax kale maaha. meta description waa intan please provide a meta description. so search markaa sameysid hadda waxaan dhihi doonaa how to create a budget. so waxaan tusinaya hadda Google-ka markaa ku search garay inta every link walba ii soo baxa qoraal yar buu halkan ku wataa kaasaa la meta description. sidoo kale kan title-kan waxaa weeye website-ka title-ka postiga iyo dash website-ka magaciisa. sidaa laftirkeeda inaad postiga ugu samaysa way sababtoo halkan bay ku qoran tahay. halkan guduudka mujida wuxuu ku leeyahay wanaga xuntaa waliba oo dherarkan ka badanay. hadda u fiirsta halkan qaar baa qarsoomaya. marka site title-kan ka reebayna iyo separator-ka still uu dheer yahay because title-ka isticmaalna dheer oo soo noqon doonaa ka. laakiin horta marka hore meta description na soo qaadan. meta description kan intaas horeysan ka soo qaadanayna.
kadibna waxaan sameyn doonaa inaan xaggan keensano. So waxyaabaha la doonaya inaan la socotin waxaa ka mid ah meta descriptionka waa inuu leadkan hadda green uu noqdaa. So waxaa green ugu dhigi kartaa inaad ka saarto waxyaabaha dheeraadka ah. So hadirtaan haddii qoraalka fara badan yahay wuxuu ku dhahayaa wax kama sax si uuna u qarsoomin. Marka intaas baa hadda kasoo baxay searchingkeena. Are you tired of living paycheck to paycheck? Do you want to take control of your personal finance? Look no further in this post. Waxaan ku dari doonaa waxaan dhihi doontaa you will intaa ku reeb. So tan waxay noqonaysaa hook bay sameynaysaa qofka postigan daawanaya ama qofka doonaya postigan research garanaya markuu arko waxay soo jiidanaysaa. Ma doonaysaa inaad ka baxdo paycheck to paycheck? Ma doonaysaa inaad controlka personal finance-kaaga gacanta ku qabsato? Postigan waxaan kugu intaas kugu qofka xuslaya marka akhriso hadhow. taasna fiican. Hadirtaan 5 bay ahaayeen weli 5 baan haysanaa. xabad kale ka bax laakiin ma meeshu markaas key phrase ka isticmaalayna metadana kuma jira. So key phrase waa kan. So key phrase waa in laga dhaxlaa metada. Haddii aan laga dhaxlin problem way. Okay, marka waa inaan u fikirtaa oo aad key phrase ka meta description ka muhiim way. Meta description kaasna aad buu muhiim u yahay iska hubi mar walbo. waxaan sameyn doonaa inaan ka fikirno. So personal finance wuu ku jiraa laakiin s baa raacsan. So haddii s taa ka reebno waxaa dhici doonta inuu inoo qaato who control your personal finance, which is English ahaan grammatical error aad weyn maaha laakiin se dantaa kale wuu noo soo saaray. hadda 4 baa haysana problemskeena. CEO title wadadkiisa titleka aad isticmaalayso wuu ka weyn yahay inta la arkayo limitka viewable-ka. hadda office hadda limitka uu aad buu u dheereeyaa title-keena. So searching-kii aan sameeyno markii hadda waxaa u fiirsanaysaa making a budget, how to create a budget in 5 steps, personal budget. way yaryihiin title gaagaaban weyn. Okay. So waxaan sameyn doonaa inaan ku noqono ChatGPT. Make this title a bit smaller in length but use the first 2 words in the beginning. waxyaabahan uu ChatGPT aan ku jeclahay waxaa ka mid tahay wax kasta oo u sheegtid way garanaysaa. si kasta ugu qortay Englishka daadan aqoon xitaa isku dhex darto way fahmaysaa ayada. Make the term personal finance meeqa kalmad horta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 less than 8 words baan dhahaynaa markaas ama 7 words leh. haduu noo gaabay personal finance 5 simple tips for personal health. kii hore aad iyo aad buu gaaban yahay kan hadda. kadib waxaan sameyn doonaa inaan title-keena gabaantiisba bedelno. hadirtaan title-keena wuu yaraaday. kadib waxaan sameyn karnaa hadda space baa nooga harsan intaad ofiisato. waxaan ku dari karnaa separator iyo site name, site title. Okay, site title xoogaa yar u dheeraaday. hadda waxaan sameynaa personal finance 5 tips. Okay, still site title ka dheer waa yahay xoogaa. site title-ka inaan ka reebo ma doonayo. inta site title-ka ka reebo wuxuu sameynayaa okay waxaan dhihi doonaa separator. okay, usoo noqon doonaa taa hal baan raadin doonaa. hadirtaan ciladaadana 3 xab ay kusoo ururtay. 3 xab waxay noqonaysaa inaad internal link ku darto. internal linkiga wax kala maahan waa inaad samayso linki ku xiran website-kaaga gudihiisa. so waa in posts aad hore u qortay aad wax ka soo qaadan karto. aad dhihi karto read more. so waxaan sameyn doonaa mid English ku qoran baan soo qaadanaya. kan baan soo qaadanaya. magaciisa soo qaad marka hore. kadib waxaan dhihi doonaa
kadibna linkigiisa iisoo qaad. waxaan sameyn doonaa linkiga inaan ku xiro qoraalkaas, kadib add linki dheh, ku paste garay, new tab dheh, kadibna dooro linkiga. waay aan soo noqono markaa dirtaan. hadda muxuu noqday green, markaas happy way u faraxsan yahay. Premium analysis laba problem baa haysta bis oo ah sawirada aan isticmaalayo inuu pagekayga wax sawir lahayn, iyo sidoo kale keywordka aan isticmaalayo waa uneven. so kan hadda inii sharaxo keywordkan personal finance aan isticmaalayo qaab uneven ah loogu isticmaalaya pageka, macnaha meelaha qaarna wuu ku badan yahay, meelaha qaarna wuu ku yaraada. ofirsta pagekayga paragraphka koowaad iyo labaad iyo titleka waxaa ku jirta 4 xabo iyo 1 xabo xaggan damba. so tan waxay u baahan tahay marka intaan pageka dhexgala 1 xabo inta ku daro, mid inta ku daro, mid ku daro, so distributionkaas aan hagaajiyo. marka mar walba 100% ma ka dhigi kartid, laakiin waxaa u baahan tahay inta aad sameyn karto inaad sameysa isku daydid. waay hadda horta marka hore sawir baan soo sameysanaya. qasab maaha sawirka inaad design garaysato. Unsplash waxay ka mid tahay website-ada ugu fiican ee sawirada freega laga soo helo. kaliya waxaa u baahan tahay userka qofka sameeyay sawirka inaad credit siiso. marka kan oo kale inoo soo qaad lacag buu ka hadlayaa. so si aan u isticmaalno horta marka hore waxaan sameyn doonaa inaan download garaysano isagoo medium ama small kaba noo soo qaad si uu nooga weynaan meesha. sidoo kale wuxuu ku leeyahay say thanks. waxaan sameyn doonaa marka inaan qofkan sawirka iska leh aan ku darno captionka sawirka si hadhow xitaa waxay noqon kartaa external linki aan siin karno qofkan. so waxaan soo qaadanaa sawirka haddaan soo gashanay. sawirka xagga u horeysan ka gelinaynaa. waxaan dhihi doonaa marka image soo qaad, image kadibna upload deh. markaana la ekeysii sawirka iyo posting inta si yaro qurux badnaado. haddaan ku noqono hadda meesheenii hal error bisaan haysto keyword distribution. image keenan wuxuuna dhahayaa improvement inuu soo baxay. imagekaan isticmaalna ma lahan attribute reflection ku sameynayo. waxaa la sameeyaa taasoo kalena sawirka titleka lasoo qaataa markaasoo kalena, kadibna sawirka clicksii, kadibna alatada sawirka waxaa ku dartaa titleka postiga. sidoo kalena waxaan sameyn doonaa captionka inaan siino qofkan. kadib waxaa sameysaa naga xir kuwan. sawirka captionkiisaan ku dari doonaa intaa photo by Alexander Gray on Unsplash. haddii aan soo noqno hadda SEO analysiskeena waa green, perfect way. kaliya halka problem inaysta imika waxaa weeye keyword distribution oo u baahnaa inaan sameyno. waa in keywordka aan isticmaalayno uu postiga meelo badan kaga distribute garaysan yahay. hadeertaan labada xagga ku jira. so tan waxay ku saabsan tahay in Englishka inaad u yaro fiirsato. so intaasna anaa daraasayn doono videoga waan dadejinayaa marka inta aan saxay inta. marka hadeertaan dhowr meelood baan soo geliyey personal finance kelmadii ahayd, laakiin mar walba 100% ma ka dhigi kartid. laakiin waxaad iska ilaalisa mar kasta problem inaad haysato. so problemka xaggan buu kasoo baxayaa. aad improvement baa haystaa, 1 xabo improvement iyo 14 good result wax problemna ma haysto. so waxaad iska ilaalisa mar walba problem inuu jiro, taasaa dhibaatada keenaysa. ana hadda wax problem mali, that's why uu green u yahay analysiskayga the office timika. readability-ga kusoo haray. readability-gana wuxuuna hal problem baa haysanaa readability iyo transition words. transition wordskana usoo noqon doona horta marka hore. wixii improvement ayaga problem ma keenaan, laakiin problemska unbaa loo baahan iska saxdo. wuxuu leeyahay subheading distribution, you are not using any subheading although your text is rather long. wax subheading ma isticmaalaysa buu ku dhahay. so tan waxaa ugu gudbi karnaa inaan kuwan subheading ka dhigno. subheadingkan wax kale maahan, waxaa weeye inaad isticmaasho subtitle ama heading title yara waaweyn. ani links waxaan isticmaalaya numbers. hadda waxaan ka dhigi doonaa heading haddii uu naga ogolaado. wax walbana waa inaad ku tijaabisaa. haddii uu ka ogolaan waayo ama problem kii hore ka daran inuu kusoo saara laga yaabaa. marka waxaan sameynayaa meel walbo numberin inaan ka dhigo heading, kadibna aan numberska caadi ugu horqoro. laakiin marka hore waxaan eegi doonaa inuu iga qaadanayo sidaa. markaad sa arkaysaan green buu noqday. kaliya wuxuu u baahnaa unkan inaan heading isticmaalo instead aan numbers caadi isticmaalay. marka si aan more clarifying ugu sameeyo waxaan sameyn doonaa inaan numberskii ku daro si dadka hadhow akhrisanaya u gartaan inta tip ee aan siinayo. kan waxaan dhihi doonaa 3. okay
1 2 3 xabad kalan ka tegasho 4 invest in yourself baa markii hore 11 5 ka dhig kadibna waxaa ka dhigtaa heading. markaad dirtaan saa arkaysaan kan isagana wax problem ma laha, hal improvement baa ku jira. improvementka wuxuu ku leeyahay 23% sentence-ka ay ka kooban transition words. So transition words waxaa laga wadaa in qoraalkan aad qorisid qofka markuu aqrisanayo inay isku xidhigaan qaab transitionkooda wanaagsan ay isku dhexgalayaan. marka haddii uu problem ahaa lahaa waa xalin lahayn, laakiin imika wax problem halkaas kuma arkayno. marka haddii halkaan kusoo noqono inaga hadirtan premium SEO as analysis-keen waxaa weeye green, happy way, readability-gan happy way. marka hadda postigan wuxuu u badan yahay inuu search engine soo qaban doono. ayuu baxshirka inaa fahamtay. haddii wax su-aalaha qabtana commentiga igu reebi kartaa. sidoo kale ha ilaawin inaad share garayso asxaabtada la wadaagto qof kastoo doonaya inuu ka faa'iidaysto qaabka search engine optimization loo dhiso ayadoo la isticmaalaya premium Yoast plugin. sidoo kale haddaad doonaysa premium Yoast plugin ila soo xiriir waan ku siin karaa mid aad isticmaali karto. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.